gudoomiyaha USA ku soo dhow هياي gudoomiyaha calaysay bay gudoomiye min sad calaysay والله وضع عريسي عاوي marka u horeysa qabanqaabiyaasha xafladan qiimaha leh aad baan ugu mahadnaqayaa sida sharafta iyo karaamada leh ee ay meeshan madashan quruxda badan leh ay u dhiseen intaa kadib caawa annagu marti baan ahayn laakiin waxaanu ka jeclayn mar walba cid kastoo halka soo joogta ay tiraahdo annagoo ah mataanihii labada xisbi mucaarad waxaanu u joognaa una diyaarnahay in 13 Noofembar haddii aan la gaadhin in aan madaxweyne loo aqoonsanin madaxweynaha runtiina waxa weeyaan madaxweynaha jamhuuriyaddu inuu noqdo nin keligii taliya oo aan cidna tala ka qaadan oo tiisownu cad oo doonaya inuu isagu wax walba noqdo taasina haddii aan nahay labada xisbi ee mataanaha ma yeelayno waxaanu diyaar u nahay maanta in 13 Noofembar ka hor la gaadho oo la ogaado in aanu madaxweynahaasi noqon doonin wixii ka dambeeya madaxweyne waar soo sidaas kuma raacayno taasaa inoo ballana wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu